madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo socdaal ku jira ayaa waxa uu kulan la qaatay oo isxaq wareysi ah shacabka ku dhaqan gobolka Highland. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni oo safar shaqo ku jooga degmada Dahar ee xarunta gobolka Highland ayaa kulan isxaq wareysi ah la qaatay bulshada gobolkaasi. kulanka ayaa looga hadlay adkeynta ammaanka, dhismaha wadooyinka, bixinta canshuurta iyo si gobolka uu u gaaro isku filnaan ay dadka ku dhaqan gobolkaasi ay iskaashadaan misna ay isu biirsadaan sidii horumar ay u gaarsiin lahaayeen gobolkaasi. madaxweynaha oo ka hadlay kulanka ayaa waxa uu sheegay in ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha iyo weliba bulshada gobolka ay door ku yeeshaan isu diyaarinta doorashada hal qof iyo hal cod ee Puntland ay ka hirgelisay deegaano ka mid ah Puntland. wuxuuna kula dardaarmay dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Dahar ee gobolka Highland in laamaha ammaanka ay gacan weyn ka siiyaan sidii loo xaqiijin